axmed kusoo dhawow marka hore idaacadda v o eda aad baad umahadsantahay maxamed. axmed waxa weeye nin si aada loo yaqaano codkiisa magaciisa iyo xirfadiisa baa tahay idaacad weyn ayaad ka shaqaynaysay muddo dheer b b c da maxaa kalifay inaad markan usoo wareegto v o eda maxamed horta waad mahadsantahay. nin baa waxaa laga sheegayay inuu yidhi nin weyn baan ahay u warrami maayo waxaan arkay waaba la ogaan marka runtii waxyaabaha igu kalifay waa idaacad weyn oo b b c da marka aynu eegno guud ahaan yani waa idaacadaha taariikhda kule afkay doonaan ha ku baxeen caalamkan ee laga dambeeyo ee la qadariyo. laakiinse waxa weeyaan wuxuu hadday si u yar majaara habaabaan ma sii fiicna waxaa weynaato oo imika masalan markaynu kasoo qaadno luqada af soomaaliga oo kale waa 50 sanadood ayaa u buuxsamay waana idaacad weyn oo dadku aada ugu xidhnaa ayay ahayd. laakiinse loo masalo labadaba de marka leeyahay waa idaacad weyn dalkii la odhan jiray Soviet Union kuba marbuu power ahaa. haddii Soviet Unionka dadka qaaranay noo garanaynba ay yaryar yihiin oo imika ruushkuna ay maqleen soomaaliyaba kasoo qaad dal la qadariyo dad wanaagsan waxoo kale ayay ahayd. haddana waad aragta de siday tahay xidna looga sheekayn maayo marka weynida horuun lama raace wixii markaasi jira ayaa meesha taalla. teeda kale aniga waxay iga tahay intaasi waa hordhacune kulley nolosha inta aad noosha waa inaad khibrad heshaa horumar aad samaysaa aad hiigsataa meel kale marka wixii aad ku hiigsan lahayd haddii aad arki weydo inaad halkan ku gaadhayso kulley meel kale aad uga bedelanaysaa maxamed. marka saas la maqlo waxaa laleeyahay axmed experienciga iyo ma garanaysaay waxa u dhimanba muxuu yahay dhinac walba ayuu ka gaadhay dhinaca saxaafadda idaacaddii ugu weyneydna codkiisa malaayiin soomaaliya maalin kasta way dhegaysataa. maxamed waxa weeyaan experienceku maaha un meesha aad joogtid waxaa laga yaabaa in meesha aan kusoo socdo dhinac kale experienceku uu ka jiro waxaana ugu sii weyn waxa weeyaan talentka aad leedahay haddaanad meel kusoo bandhigi karayn yani hibada ilaahay uu ku siiyey oo aad aragtid in markaasi aanad haysan fursadii waxaanad kusoo bandhigi lahaydoo si qalloocani ay jirto. dabcan waxaad soranaysaa caqligan ilaahay ku siiyey maskaxdan ilaahay ku siiyey iyo awoodan ilaahay ku siiyey iyo kartidan ilaahay ku siiyey iyo talentkan ilaahay ku siiyey ama hal abuurnimadaas dee meel kalood kusoo bandhigto ayaa wanaagsan oo aad inta aad nooshahay dadkii uga faa'iidaysa marka taasi maan ujeeda. dhegaystayaashii kala duwanaa axmed oo kugu dhegaysan jiray idaacadihii soomaaliya iyo b b c da ee hadda kugu dhegaysan doona v o eda maxaad ku leedahay? waxaan ku leeyahay kusoo dhawaada codka maraykanka idinka ayaa garsoorayaala oo kala saari kara wixii horta nolosha haddayna tartan lahayn naf male. waxa weeye idaacadda b b c da waxa weeye waa idaacad weyn sidaan horeba kuugu sheegay maxamedow laakiin waxa weeye noloshu haddii aanay tartan lahayn aniga ilama qurxoona wax kula tartama haddaad weydidna kuumaba dhandhamasaba. waxa weeyaan idaacadda b b c du annaga ka wariyaalhaan shaqaale iyo dadka soomaaliyeedba xuurtay ku haysata dadku idaacad u dhiganta b b c da oo ay dhegaystaan may haysan waxaa doontid ka sheeg waa la dhegaysan jir waa lagu khasbanaa waxaa doontid ka sheeg annaguna oonu ku khasbanayno dee dhinacan uga wareegna maan hayno markaa annagii iyo dadkiiba xuurtay ku haysata. laakiin imika xuurtadii dadkiina uu ka baxeen annaguna ka baxne ishaa macalina kaynu u daynaa garsoorida meeshii dee tartan baa imanaye. marka diyaar baa tahay axmed dhinacaaga? markii aan east africa jooga waxaan bartay kelimad la yidhaha kabisa yani absolutely. axmed markii dhaweydna waa adigii soo qaatay sovietka marka waxaad leedahay isbeddelkan anigu idaacaddii aan ka bedelanaya mooyaane kulley waataan kudhi kugu horreysiiye nin weyn baan hoo warrami maayo waxaan arkay waaba la ogaan marka waxa weeyaan dee ishaa macalina tuna waa macalin imika ishaa macalin baa la odhan jiray taasi dadweynaha ku wanaagsan runtii inaynu weydiino. markaan si kale u dhigno axmed in badan baad kusoo jirtay idaacadaha dadku ay ku dhegaystaan ma xusataa markii kugu horreysay idaacad ka hadasho iyo wixii aad ka hadlaysay markaa? infact maalintii ugu horreysay ee aan idaacad ka hadlo ereygii aan idhi ma garanayo laakiin waxaan aada usii xusuustaa hadda 1973 waa muddadaa dheer maalintii ugu horreysay ee aan war akriyo balaa anigoo 7 cisho ilaa 10 cisho ku jiray ayaa warka la ii dhiibay berigaasina may jirin af soomaaligan lagu tarjumayo markaan idaacaddii dhamaynayay warkii ayaa waxaan idhi warba intaasuu nagaga dhan yahay sidii waxaan aan war dambe oo dhan kala hayn. ismaaciil aadan bakor ayaa wasiir beriga markaas yidhi warba intaasuu nagaga dhan yahay ka daayo warkii intaasuu ku dhan yahay waan xasuustaa ereygaasi
iyo runtii dee waxyaabo badan ereyga maalintii ugu horreysay lagu qoslay kaasuu ahaa. marka idaacaddii markaasi aad ka bilowday radio muqdisho mise radio hargeysa? radio muqdishoan anigu ka bilaabay, radio hargeysa weligey kama shaqayn. markay noqoto axmed, muddo fara badan 73 markaad fiiriso in badan baad kusoo dhex jirtay idaacadaha wararka kala duwan. warkaad is leedahay wuu kuugu naxdin badnaa oo shakhsiyaan axmed waad akhriday muxuu ahaa? maxamedow, horta waxa aada u wanaagsanaan lahayd haddii su-aalahaan aan sii ogaan laha onad igu kadisanta imika waa toose. wax badan baan xusuusanaa, laakiinse kolley mid baan aniga iga goyn oo ah beri waxaa jiray lasoo saaray xukuumaddii markaasi jirtay militariga ahayd in ragga iyo dumarku ay siman yihiin oo sinaantii ragga iyo haweenka. markaasaa madaxweynihii markaasi jiray maxamed siyaad ayaa ka khudbadeeyay meel stadiuma, deetana rag iyo dumarkii waa siman yihiin baa layidhi. suurata nisa ayaa laysku qabsaday oo markaa khudbada ku jirtay. markaa niman wadaadaa ayaa arrintaasi aada uga gadooday, soomaalida kale cid ka dhaqaaqday may jirin. nimankii ayaa lasoo xidxiday, deetana aroortii ayaa la toogtay. barqadii markii la toogtay, warka duhurka ee 2:15 soo geli jiray ayaan anigu maalintaa lahaa. wadaadadiina waa la dilay, dadkoo dhanna way deg taagayaan. horta warka igu naxdin badnaa ee aan isri yani aan aada uga xuma kaasuu ahaa. waayo waxa weeye dadku mooga waxaan aan sheegana markaan dib ugu noqdo yani wadankii soomaaliya, waxa wararka dibadda moojaane inta kale wax qoranoona waxba ka bedeli karin ayay ahayd oo dalka ku saabsan. oo sidii lagugu dhiibo aad odhanayso? sidii lagugu dhiibo aad u odhanayso. ummadii oo dhanna aad bay uga xumayd runtii dee dilkaasi. marka waxaad dareemaysaa inay ka odhanayaan marka lagu dhiba tiraa wadaada intaasi oo yani wadaad xumayaal iyo waxbaa dee ku qora ayay ka odhanaya afgaala ku qabay. markaasaan war haddaba maanta iyaa kaa bedesha warka. I still remember markaad sii gelaysay waad gariiraysay. markaas oo idaacaddan ka wada shaqaynaya maxamed aadan tera, labadaba waan u tagoday. nin walbana waxaan wuu og yahay. markaasuu yidhaa waa nin oo intaan cunaha isqabtaan anigo bestay baan ahay maanta waanba niyo meel kale aan kusii ordayn cidina kaama qabanayso. nasiib wanaag waxaa dhacday in markii la laayay wadaadada anigoo warkii oo sidaa u warwarsan ayay 2 diyaaradood isku dhaceen. markaas xaafad waa beri iyo dhanka iyo qaybdani ay gubatay. waa isla maalinkii? waa isla barqadii markii lasoo dilay isla markiiba. markaasaa waxaa la yidhi markii warkii kale la ii keenay ayaan fakeray, waxaan idhi war intii dadku afkaala ku qabay iyo wax ku odhanay hadda iyagoon ku ogeynin waxa lagu dhiibo shaqaalahaduuta allayle maxaad samaysaa. waxaan ku bilaabay markaa warkii diyaaradaha isku dhacay, iyadoo ay ahayd inanka kale ku bilaaba really. oo sidii lagu sheegay waa isdabamarisay? waxaa yani waxaan de iyagu habkan laysku dabamarinaya badanaa ogtay dawladii xasilamay socon, laakiinse wixii doonaaba hadda een horta kan diyaaradaha kii diyaaradahaasaan waday dee 2 diyaaradood baa iskugu dhacay. sidaas ahayd hebel baa waday, waa kan xaafadaasi dawladuna imika hawlihii way wada dee sidii ereyadii kacaanka anigoo isticmaalay un baan kii kale la hoosgeliyo nidhin 10 wadada saakada halkaasi lagu dilo waaba ka horta warkiigu naxdin badnaa maxamed kaasoo aan ka baqdaa. markay noqoto dhinaca farxadda lafteeda, waa intaas waxa weeye dhacdooyin kala duwan baa dhacayay. warkaad is leedahay aad baad u xiisaynaysay ama waad jeclayd inaad akhrido ama markaad akhriday xiisaad dareemaysay? really kuwaasi aad bay u fara badan yihiin, waayo dee ummaddu waxay wada jecesha oo loo sheega baa jira. inta badanna berigii dee radio muqdisho la joogay waxay ahayd un warar kale oo wax aad loo xiisayn jiray. beri waxaa jiray 1977 dagaalkii soomaaliya iyo etoobiya oo aan faallooyinka akhriyi jiray, oo ay ahayd yani qof aan isleeyahay balaha maalinta hadduu dhaafo wax weyn baa dhaafay. dadkuna runtiina ana aada ugu soo baxay ayaa moogtay markaa la jeclaa. walow imika de markaan dib u dareemo ee aan dib u eego aan idhaahdo niyo hawluhuba waxay ku wanaagsan in bal hadda labada dawladood ay si isku fahmaanayeen. laakiinse wararka yani markaan xiisay lahayd waaga bismillaahi raxmaan raxiim ma xiisay lahayd mise yani magaalada maan mari jirin maxamed runtii dee rag badan oo imika xaggiinaa jooga ama imika ina maqlayaaba way joogeen amase soomaalida in badan oo kamidii way ogeyd. wararka ummad waxaan idaacad ka sheego ugu xiisa badnayd ay ahayd. iyo dhinaca marka la eegana dhalinyarada iyo soo korasana barnaamijkii madadaalada maqashii madadaal lo odhan jiray oo aanu gabdho kale wada sheegi jirnay. waxyaabo badan oo xiisa laa jiray, laakiinse ta ay ummaddu ka sinayd rag iyo dumar ee aanay dhaafi jirin duhurnimada faallada ahayd. axmed, mar kasta oo lagu dhegaysto hadday noqon lahayd dhinaca entertainmentiga iyo wararka muddadaa faraha badaneed ku soo jirtay, mar kasta haddana waxaa kaa muuqda xiiso iyo jacayl dadka soo jiita. maxay tahay waxaasi ku socodsiiye mar kastaba aanu daal ama maaragtay xanuun aanu kaa muuqanayn markaad wararka akhriyayso ama entertainmentiga sheegayso?
maxamed halkan ay nimankan reer galbeedku ka yidhaahdaan yani tell us the secret balada waxa sirta ka dambaysa waxaan noo sheeg runtii horta abuuri way iska jirtaa oo dee biniaadamku kala duwayo waxaa laga yaabaa dad aad dhegaysan jirtay sanad ama 2 sanadood aad dhegaysanayso haddana codkiisu isbedelaa jira haddii waxa adigu aad tahay waxaan aad niyad u haysid oo aad jeceshahay waxaad samaynaysa haddaad jeceshahay horta waad soconaysaa laakiinse mushkiladda waxa weeyaan marka aad meel kale u hanqaltaaga sideed isleedahay ama siyaasi noqo ama lacag yeelo ama hawshan ka bedelo oo meel kale u bedelo well of course dabcan waysa soo gabasaa laakiinse waxay doontaba ha noqoto shaqadaada markaad aaminsantahay waad soconaysaa maxamed markay noqoto axmed oo shaqadaas aad aaminsantahay aad jeceshahay haddii aadan weriye ahayn